السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا هذا channel كدد وينها يوتيوب عديت كعصب تاع channel كنا كسر بير هاتن أو سبسكرايب صار هذه أنا تكعصبنا كسروا مقال عصب سيدان هرايدن كوشة جايبة هذه أضوح الله يقانو إنترنت كات كوسي جرتو وحيوم مرة كاسي دم بيكاسي أو يوم بدر كيسا سيدي حريف كي الريحة مر كامر كباديها وبحثوا أركي نيف كيلو دليا تيتنيري عمرجان كسراجو جيل دلو ينواس كتوسا حريف كاسي مر كروب كدوينا جيلو بيها صار حرا عن طول ميوم مليني بو هذا ياكو كان وقتها واحد ليا بنت جيل دلو يه هذا واحد يقول من سهرك دلو يه هذا ما برنامجنا waxaan ku soo qaadan doonaa dad firay waxay ahaan jireen asalkoodii awal waxaan arki jiray markaan tagno wadamada reer galbeedka iyo wadamada carabta dad Soomaali ah oo ka xaragooda Soomaalinimadooda iyo dad Afrikaan oo markay Mareykanka iyo reer galbeedka iyo wadamada tagaan in kiraba Afrikaannimada haddaba waliga maaragtay qof cadaan ah oo ku dooda inuu yahay Afrikaan White, you're white. I never believed her because I knew I was black. waxaad arki jirtay dad ku dooda oo ku faana inay yihiin Mareykan balse ma aragtay dad Mareykan ah oo ku dooda inaysan Mareykan ahayn cajiib kuwa noocaas iyo kuwa kale badan ayaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadanay la socda ninkan ugu horeeya waxa lagu magacaabaa VJ Jekyll waa nin Asian Hindi walibana madow ah ninkan hadaba waxa uu dhibaatooyin kala kulmay waa sida uu isagu sheegay koolajada dalka Mareykanka koolajadii ayaa dalabkiisa reject gareeyay wiilkan koolajka ayuu tagaa foomamka ayuu buuxiyaa marka qaarna internetka ayuu ka buuxiyaa jawaabta soo baxdana mar walba waxa weeyaan uu naga raaliyahay dalabkaaga lama aqbalin wiilkan reject aba naftoo keentay deetana uu fikiro wuxuu isweydiyay ciladan lagu haysto waa maxay xagee wax ka qaldan yihiin deetana waxa uu arkay dadka Afrikaanka oo inta badan dalabkooda la diideen halkaasina waxa kaga soo dhacday fikrad maadaama madow tahay Afrikaan ma iska dhigtid ninkii timihii buu dukurtay ilaan waa la fahmi lahaa timihiisa jilicsan magaciina uu iska bedelo wax wala baxay Jojo waxa uu sheegtay inuu yahay nin Afrikaan ah walibana xubin firfircoonka ah urur lagu magacaabo African American ugu dambeyn ninkii fikirkii uu ku guuleystay dalabkiisina waa la aqbalay Martina Page waa gabadh ka soo jeeda dalka Jarmalka gabadhan ninkan way ka dugan tahay isagu college kaliya ayuu ku dalbaday Afrikaannimada laakiin iyadu waxay ku aansatay inay Afrikaanad caadi u ekaato عجيب هره waxaanu arki jireen dad madow oo inta bleaching isku sameeya jirkooda cadeeya qaar baa lagu tuhmaaba asalkoodii madow bay u dhasheen iyo may cadaan bay u dhasheen balse anigu waxaan garan lahaay aan ku wareersanahay sababta gabadhan cadaanka ah ee cadaanka dadku cararayaan u dhalatayba ku nacday ay madowga ku dooratay halo Mr. Uganda waxaad noo sheegtaa sababta gabadha ku kaliftay inay madowga doorato aniga fikirkayga gabadhan nin cadaan ay isbartay ninkii cadaankana waxa uu ku yiri aniga madow umba dooqayga marka Mr. Uganda waxaad leedahay gabadhani waxay aamintay inuu midabka madow ka qurux badan yahay kan cadaanka ah soo maaha waa sida gabadhani midabkeedii cadaanka ah ee jirkeeda guud ahaanba waxay ka wada dhigtay midabka madow xataa timihii cadaan waxay ka dhigtay madow ma aqaan sababta ay ku dooratay midabka madow ma waxay ka shaqeyn jirtay meel shaqaale wada madow ka shaqeeyaan yaa akhiya u sheegay in badan hablaha Soomaaliyeed kamid ah hadii aad maanta boorsadooda aad baadhid aadan ka soo saareen waxaan ahayn kareemyada jirka la isku cadeeyo adiga kale hablaha Soomaaliyeed maxaa ku tabadhigay hablaha Soomaaliyeed ma marsadaan kareemyada la isku cadeeyo yaa ku yiri kareemyada la isku cadeeyo marsadaan waxay marsadaan oo kaliya yaa akhi kareemyada jirka nadiifiya yaa akhi ka bax warkaas 2009 wixii ka horeeyay gabdhaha Soomaaliyeed way isku jireen oo nooc walba wad ka helisay cadaan madow maariin laakiin haatan way adag tahay inaad gabadh madow soo heshid hablaha Soomaaliyeed yaa akhi sharaf leeyna toosha ka jeedi rag is cadeeyeen cadaanka loogu talagalay maxaad uga hadlaaday maxaad hablahan ku haysataa ma haystay hablaha Soomaaliyeed waa dad sharaf leh laakiin waxaan ku sheegayaa oo kaliya inuu midabkan madow ee laga cararayo uu yahay mid aad u fiican oo aad u qurux badan oo aan la soo helin mid u dhigma taasna uu aaminsanahay Ilaahay baa u dooray dadka madow inay madoobaadaan ee qof waliba Ilaahay midabkiisa yahay ku qancayaan leeyahay waa tahay imikana waxaynu u gudbaynaa qofka saddexaad qofkan magaciisa waxa lagu magacaabaa Jadu qisada shakhsigana waa mid aad u cajiib badan Jadu qisadeedu ma dhaamsa qisadiisu ma aqaan waxaan ku tilmaamaba qofkan asalkiisii hore waxa uu ahaa shakhsi cadaan ah misna dhashay isagoo ah lab ama nin qisada qofkani waa mid aad uga dugan labadii hore ka soo sheekaynay shakhsigani markii hore qalin ayuu isku sameeyay gabadh ayuu iska dhigay Soomaa gabadh buu iska dhigay wajigiisina wuu bedelo wuxuu iska dhigay qof Asian ah waxa uu iska dhigay gabadh Filipino ah bal fiiri wadada dheer uu maray waxa uu ka guuray jinsiyadii raganimo waxa uu u guuray gabadhnimo waxa uu ka guuray uu iska bedelay dalkii uu dhashay waxa uu iska dhigay wadan kale oo u dhalanba oo ah dalka Philippines waa waali iyo faduultii u dambeysay gabadhi markii la weydiiyay maxaad ku jeclaatay oo ku dooratay inaad u ekaato Philippines waa dad Asian ah oo waji kuuskuusan oo gaagaaban maxaad ku jeclaatay waxay leedahay waxaan ku jeclaaday dhaqankooda iyo cuntadooda iyo muusigooda waa tahay halkaas ayuu maanta barnaamijkeenu ku ogyahay hadii aad ka hesay barnaamijka like saar hadii aad ku cusub tahayna channelkeena dadweynaha ta ku soo biiro subscribe saar oo la soco barnaamij walba soo gelno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.